Kasta iyo goob kasta la soco Nasri Channel 900. Maanta habar jecel waxaa lagu duleysanayaa Somaliland dhulkii ayagu sida gaarka ah isku xigsanayeen. Saraakiishoodii waxay noqdeen qaar shirqoor lagu laayo, qaar loo diro furimaha dagaalka oo halka ku nafaya. qaar way iskaga yaaceen markii uu adkeysan kari waayeen tacadiga saraakiisha la haybta madaxweyne Biixi ay u geysanayaan. Intaa waxa dheer qoysaskoodii waxay ku noolaan kari laayihiin caasimadda dalka. anaga habar jeclaa waxa tiraahdaa wadanka waxba kuma lihidina dareerana marna ku difaaci mayno ragga iyagu maran maayo oo dhaqaatiirta saa uga buuxi maayo marna carruurta agoontaana loo dhaafi maayo sanad walba wax la tooganaya saddexdaa ku jiro habar jeclada ayaad ka soo midhataa. haweenkii birmageedada ahaa qaarkood way xidhan yihiin si sharci darro ah oo ku dheeldheela haweenkoodii waxaa loogu geysanayaa saldhigga dhexdiisa tacadiyo qaar jirdil ah. qaar saraakiisha ciidanka ka mid ahi waxay ka dhawaajinayaan kufs waxa uu falfoolxun kula kacay maalin maalmaha ka mid ah maxbuus noo xidhnaa oo laga soo xidhay gobolka Togdheer oo xidhnaa kiis ka dhacay gudaha Jamhuuriyadda Somaliland. markii la soo gudbiyay saldhigga dhexe Burco soo gudbiyay loo soo gudbiyay saldhiggayagii waxa dhacday waxa loola dhaqmay si fool xun waxa weeyaan waliba qof bashar oo gabadha bay ahayd si xun oo bini'aadanimada ka baxsan ayaa loola dhaqmay. gabadha heer wuxuu gaadhay inuu farihiisa ula tago inuu mataqaanaa waxaan ilaahay aan sharcigu u banayn inuu kula kaco arrimo fool xun inuu taabtay inuu habeenkii saqda dhexe u gali jiray markhaatiyo iyo cadaymo saxna aan ka hayo waxa weeyaan waliba inuu soo bandhigi karno iyadii xiriir la sameyn karno la hadli karo iminka aan cadayn karayo falka ugu weynaa kaasoo ahaa. sidoo kale ganacsatadii habar jeclo iyaguna waxay ka cabanayaan dowladda Somaliland iyagoo cadaadisyo dheeraad ah ay saartay. laakiin maan filan maanta inuu qolo Mareykan iyo Ingiriis ka timi sidaas kale ila dhaqanto. waxaan ka codsanayaa asalkaan u taagnay saaka bakhaaradi deeyadii shirkadda intuu dambeysana wata waxyaabihii barxad ka cabanayna banaanka u soo baxay. waxaan ummadda Islaamiyada u sheegaynaa xukuumaddaasi faqran inay geysatay waxa weeye ognahay abaaraha dhacay xooli waa dhamaadeen geedka yar beeyada ah ayaa wax Soomaaliland ka soo go'ay jiray gobolkaas ilaa ka soo go'ay jiray mid Hargeysa ku nool iyo mid Burco ku nool iyo mid Berbera ku nooliba ayagay masaarifsan jiray maanta waa taasoo wax la leeyahay shirkadii aadan Cabdillaahi Cali oo kamid ah ciidanka booliska Somaliland darawalna ka ah gaari kamid ah gawaadhida ay boolisku ka howlgalaan ayaa shil galay maadaama uu ka soo jeedo beesha habar jeclana shilkii khasaarahaasi uu ka dhashay waxa dusha laga saaray askariga qoyskiisa. arrintaasi waxaa ka gadooday qaybo ka mid ah ciidamada qaranka ee Somaliland. sidoo kale qoyska aadan ayaa aflabadii ka yaray oo ugu horeeyo aabihii. waxaan ahay Cabdillaahi Cali Bujir baan ahay ninka meesha lagu qaylay ninka dhalay baan adeer inimada dhashay waxaan dhalay aadan Cabdillaahi Cali ninka gaarigu kula dhacay ee labada nin ku dhimatay ee lagu xukumay isagiina la xidhay mantiina aniga la saaray 12 dhaawacmay iyo gaarigii iyo labadii waana meesha dhow shilka ka dhacay ee hadda soo maray mala aynagu ka dhacay aynagu shilkani ka dhacay 12 ha sax 12 way ku dhaawacay aad iyo aad labana waa dhimatay aad iyo aad aadanna 12 buu ku ahaa waa ku dhaawacmay isagoo dhaawacii qaba aad iyo aad waan cidi daweyn oo dhakhtar geey yaa 4 sannadood inta lagu qaaday la xidhoodka dhiga halkii uu ku dhumay oo waa ka haddar lagu qalay gargaar yaal isbitaal gargaarka Hargeysa waa ka yaal sax intii wixii meesha ka dhacay khasaarahana adigu bixiraalay sax Bashiir oo isaga hoos sugaya oo aan dhalay oo dhalasho ku xigay uu ku soo dhaawacmay gooch cad buu ahaa ciidanka qaranku ahaa 5 meelood buu ka jabay sax waa ka maanta lagu qalayaa Dr. Ismaaciil Hargeysa
وحكتشوي كل كاميريكا وحكتشوي بودة بيلحظة وحكتشوي جعنتها بيلحظة لما يبقى كايش صح هذا ربك كلام صحيح وانا يا مصدق صحيح halka waxa ka dhacay aadan cadaalad xumo weyn baan kaga tirsanayaa صح dawladda صح waxa qaatay ambiil racfaan baan qaatay racfaankii markii aan maxkamadda geynay waxa dhacday in loo yibo oo maxamed kaahun yibi oo أنا أقولي يمكن شغل كمالي. صح. أو محكمة ديك أنا أبيك. صح. لا ما أنت يا مالك أنا شواب ده مكراهي. صح. أنا يوم واحد عيني أفر سنوات رهني ما يبغى مرة وأنا هو. هدية. هل كان عيني. صح. ما نقول إنك يسكت هذا إذا مرة. هدية. أوتجي. صح. معها نهي. أود جانوان. هدية. أود. صح. جانوان. هدية. كل تعال تشتغل يلا وعيانا هم صح تراها عنك صديق وهاي هدية ما جانب شرعي دراه دلك وقلنا لطيبة محاقل دم سيدي واي حالكم